cali khaliif galeer oo lagu aasay magaalada muqdisho allah u naxariistay waxaa shalay magaalada muqdisho lagu aasay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya cali khaliif galeer. aaska marxuumka dadka ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleyd, madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cusmaan, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed, wasiiro xildhibaano ehelka marxuumka, odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. aaska ka hor waxaa salaada janaasada lagula tukaday mid ka mid ah howlasha garoomada ciidamada cirka ee Afasiyoni. wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho ayaa xirnaa sababo amni oo ahaa meelihii la marsiinayay cali khaliif galeer, waxaana lagu aasay isbitaal ay leeyihiin ciidamada xoogga ee Soomaaliyeed. ka hor aaska ehelada marxuumka oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay inaysan rumaysnayn in uu u dhintay COVID-19 oo dalbaday in baaritaan lagu sameeyo meydka cali khaliif galeer. marxuumka ayaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Khamiistii, halkaas uu socdaal shakhsiyadeed u joogay, waxaana habka loo aasay ka muuqatay habka loo aaso dadka u dhintay COVID-19. caloosha ayaa laga qabtay, wuu shubmay, wuu fuuq baxay, cunto isdhaaftay ayaan u malaynaynaa in uu u xanuunsaday, isaga ayaa inoo sheegay ayay yiraahdeen ehelada cali khaliif galeer.